alaabta loo isticmaalayo oo wax fiican ahayn waxaa kaloo jiro inay kaadida ku dhagto gabdhaha gudniinka fircooniga oo ah dhaqan ka soo horjeeda diinta islaamka ayaa ah mid soo jireen ku ah Soomaalida waxaana ka dhalata dhibaato caafimaad iyo mid maskaxiinaba isla markaana lagu jarjaraa qaybo muhiim u ah jiritaanka jirka aadanaha qaasatan dumarka oo lagu sameeyo Dr. Kayf Xirsi oo ah dhakhtar ku takhasustay cudurrada ku dhaca haweenka ayaa ka hadlaysa dhibaatada caafimaad ee gudniinka fircoonigu u leeyahay dumarka caruurta ah ee lagu sameeyo iyo guud ahaan haweenka caadada gudniinka fircooniga ee gabdhaha caafimaadka dhinaciisa dhibaato badan uu leeyahay waxaa kamid ah gabdhaha markii la gudo in dhiig bax ku dhaco dhiig baxaas oo u keeno mararka qaarkood inay la miyir doorsoomaan oona loo keeno isbitaalada waxaa kaloo jira inuu infection ku dhaco ama caabuq oo ka imaado markii la gudaayo alaabta loo isticmaalayo oo wax fiican ahayn waxaa kaloo jiro inay kaadida ku dhagto gabdhaha oo markaasna loo keeno isbitaaladana loogu keeno ayadoo kaadidii bariyo badan aysan kaadinin dhibaato badanna ay ku hayso waxaa kaloo jiro cawaaqibo kale oo ka imaado markii gabadha la guursado oo ah in ay markii ay guurka u dhaco ay dhibaato badan kala kulanto oo mararka qaarkood loo keeno in la furo maxay tahay xiriirka ka dhaxeeya ku raagida foosha waxa ayna la xiriirinaysaa inuu qayb ka geysto gudniinka fircooniga dhibaato badan uu leeyahay hooyooyinku way ku dhibtooda markay dhalayaan markii la guursado dhibaato badan ay leedahay marka waana wax aad ugu badan Soomaalida Saacidi Maxamed Nuur waa agaasimaha genderka ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa ayna ka hadlaysaa xaaladda gudniinka iyo saameynta uu ku yeesho gabdhaha Soomaaliyeed iyo guud ahaan haweenka isbitaalada marka tagto run ahaantii waxaad arkaysaa dhibaatooyinka gudniinka uu leeyahay gaar ahaan goobaha dhalmada isbitaalada ay leeyihiin waxa aad u badanaya fistulaha waxyaabaha la dhaho isku furanka haweenka ku dhaco kaasina sida aan ognahay waxa sababa gudniinka gabadhii aad loo soo dhibaateeyay oo aad loo jarjaray oo haddana ilmihii dhali weyso ama xilli hore inta la guursaday iyadoo gudniinkaas qabta iyadoo jirkeedii soo kabanin oo wali iyadoo da'yar la guursaday ayaa haddana waxa ku dhacayo isku furankaas ku dhacayo waxa kale oo jira gabdho aad ula xanuunsanayo dhibaatooyin buro waxyaabo buro la dhaho gabdhaha qaar laga gugubo kaasina waxa sababtay markii aan weydiinay xeeldheerayaasha caafimaadka maxaan ku dhahaa gudniinkaas sababa waxa kale oo jira shoog gabdhaha markaas in uu ay ku rido dhanka guurka ah inay gabdhaha guursan waayaan cabsi ay ka qabaan dhibaateyntaas gudniinka iyadana qayb uu ka yahay Dr. Kayf ayaa waxa ay ka hadlaysaa sidoo kale gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka soo jireenka ah oo uu ku sameeyo nolosha haweenka kasta waa la keenaa goobaha caafimaadka ayagoo laga keeno gobolada oo dhibaato badan haysato kaadida ku dhagan tahay waxaa kaloo jiro in buro ay ka soo baxdo meeshaas oo qaliimo badan aan ugu sameeyno ma jirtaa shuruuc iyo waliba sharci lagu xakameynayo gudniinka fircooniga marse loo baahan yahay in si xoog loo xakameeyo gudniinka fircooniga ah maadaama dhibaatooyinkani ay ka dhalanayaan waxaa arintaasi ka hadlaysa agaasimaha genderka wasaaradda haweenka Saacdiya oo xustay in wasaaraddu ay wado dadaalkii ugu xooganaa ah in la helo sharci loo marayo cidda sameeysa gudniinkan political advocacy loo sameeyo ama u qareemid siyaasadeed in loo sameeyo sharciyada wasaaradda ay sameysay oo ah sharciga markaas guud ahaan baabi'inaya tacdiyada haweenka loo geysto iyo wasaaradda waxay diyaarisay sharciga gudniinka marka halku dhigeena qaran waxa uu yahay in u qareemid siyaasadeed uu helo sharciga baabi'inta gudniinka gabdhaha oo hadda xukuumadda yaalo oo wasaaradana ay diyaarisay sanadkii hore Xaliima Raage waa mid ka mid ah hooyooyinka danyarta ah ee gabdhaha guda isla markaana umuliya haweenka. Xaliima Raage waa hooyo ku nool mid ka mid ah kaamka magaalada Muqdisho waxayna ugu yaraan maalintii ay gudaa 3 ilaa 4 gabdho ah iyadoo marka qaar ka sameeysa gudniin wadareed ay u sameynayso ilaa 10 ilaa 15 gabdho ah taasoo ay xustay in ay u kala dhaqaale yartahay waalidiinta gudniinkaas sameynaya walaashii mar laba ay soo bixi mar saddex ay soo bixi sidii ay macnaha
antooysan leh waa maahay marmarna soo baxaysaa marmarna waa soo baxay laakiin afar waa ii soo baxay shan waa ii soo baxaya mar waxa lagu leeyahay maanta gabdhahan iyo gudkaale 3 iyo 4 aan rabaa mar 6 rabaa lagu leeyahay dadku isku keensanaya tan wixii dhashay tan hayay walaashay ilmaana gudow la rabnaa haddii aynu eegno bay'ada ay ku nooshahay Xaliimo halkani ma ahan goob nadaafadeedu ay fiican tahay qalabka ay isticmaalayso iyo fahamka ay ka haysato nadiifinta adeega caafimaadku intuba ma ahan kuwo wanaagsan balse sidoo kale waxa ay iyadu haatan fulinaysaa gudniinkani wallaahi walaashay man qasa iyaala sakiinooyin oo guguda man qasad oo bahalka markii soo barsi oo qabanayo oo sakiinta ku goynaayo iyaala alaabtaas qalabkaasana iyaa qatar dhinacyo fara badan ah ayay wajahayaan gabdhahani balse waalidiintooda qatartaasi uma muuqata waxayna u baahan yihiin in wax badan laga bedelo noloshooda mid waxa ku dhahaan walaalay kii sariibis iga dhig dad waxa ka dhahaan war sunnada ilaahay faaliyay sunnada leena wada walaashay هاي سريبس محل هاي يعني فرعونك waay